السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتا مeel walba aad joogtiin waan idin salaamay kusoo dhawaada channelkan cusub subscribe saar like share meel daar u gaarsii si ay dad badan u arkaan waxaan doonayaa inaan gudbiyo dil oo lagu geystay nin la yiraahdo Charlie Kirk waa nin caan oo reer Mareykan waxa weeyaan white supremacy wuxuu aaminsan yahay gaaladu inay ka sarayaan qoomiyada kale oo ku nool wadamada westernka wadamada Canada Mareykan UK dad noocaas ba ku xiran mad garanaysaa nin khasiisto wuxuu ka hadli jiray dadka qaxootiga wadanka Mareykan lagu keenayo iyo waxaan ku wariyaa dadka gangiska ku jira dadka xabadaha waxaan ku wari ku dhufanaya dadka kala kufsanaya waxyaabo badan buu ka hadli jiray ninkan aad wuxuu ku diirin jiray dadka waxaan ku wari cadaanka oo Mareykanka ku nool wuxuu doonayay koox inay u sameystaan koox oo maaragtay segregation bulshadii kale inay ka fogaadaan buu doonayay marka waxa weeyaan shir buu qabanayay magaaladii Utah university buu tagay ardayda kamida ba su'aal weydiiyay su'aal ku saabsan gang violence ama dadka xabadaha wato iyo oda isla markuu ka jawaabay su'aasha xabad ayaa lagu dhuftay duntiisa ba marka dhiig ba ka soo yaacay dadkii oo dhan ba ka soo dareeray meesha ilaa imika lama garanayo qofkii asaga dil u geystay laakiinse police iyo FBI ba baaritaankii bilaabay marka la yaab leh weeyaan ma garanaysa ninkan waxa weeyaan dad yahuud ba wata dad oo maaragtay dad siyaasiyiinta ugu weyn oo reer Mareykan ba ku xiran ninkan Donald Trump ba garanaya waxa weeyaan wasiirku xigeenka xitaa Israel dad badan ba garanaya soo waxa la yiri tweet buu soo dhagay isbuucii la soo dhaafay tweet buu soo dhagay wuxuu ka hadlayay dadka Soomaaliyeed oo soo taxriibaya oo wadanka qaxootinimo ku imanaya Mareykan waxaas buu waramayay wuxuu yiri dadkan qaxooti ku imanaya Mareykan sano amba markay sharciga weyn markay helaan dalkooda bay ku soo laabanayaan marka wuxuu yiri dadkan wadankooda nabad ba taala nabad weeyaan qasam maaha inay Mareykanka yimaadaan bal ka waran nin Mareykan oo maaragtay wadanka Soomaaliya burburiyay wala iska garanaya who orchestrated the civil war dagaalka 90kii dagaalka 80kii yaa kan dambeeyay waxa kan dambeeyay Mareykan wadamada beesha caalamka ba maaragtay ba kan dambeeyay iyo waxa isticmaalayeen Ethiopia si maaragtay inaga dhaxdana saas ku dagaalamo ka Mareykan ba ka dambeeyay asaga ba waxaan ku wari asaga daraadeed buu Soomaaliya buu buriyay hadana wuxuu sheegay oo dadka qasam ma ahayn wadankan inuu joogo soo marka waxa weeyaan Soomaalidu waxa ku maamaadaan gardaro lama garab yeelo ninkan suu dadka suu caay jiray suu dadka maaragtay hoos buu dhigi jiray iyo dadka masaakiintu suu ora xitaa wuxuu yiri dadka masaakiinta oo qasa ku nool wuxuu leeyahay janasan ma jiro oo waxa weeyaan raashin badan bala keena Israa'iil ba difaaca raashin badan bay soo rara laakiin waxba kama jiraan dadkan gaajo bay ku dhimanayaan asaga waxa soo dhan buu dafiray wuxuu leeyahay janasan ma jiro qasa dagaal kama jiro dad masaakiin ma baabinayaan marka qof noocaas buu ma wax fiican ba ku sugaysa ma wax khayr ba ku sugaysa marka waxa weeyaan Ilaahay ba xalka og inaga shacab baanu nahay dad masaakiin baanu nahay marka waxba maaha inaka waan ku faraxsanahay warkan inuu soo baxay waan ku faraxsanahay qalkan intaanu koobin subscribe like share make sure you check out my other videos and I'll see you lot soon